buu socdaa sanadkan oo wuxuu gaarayaa koobka adduunka finalkiisu habeenka kan wuxuu yahay habeenkii lixaad taariikhda oo ay final koob adduun ciyaarayaan saddex semifinal ugu horeeyay Faransiis waa wareeri jiray oo meel la saari jiray laakiin labadii semifinal ugu dambeeyay Faransiisku wuxuu gaarayay heer final labadii 1998 oo koobku qaaday waxa dhiman kaliya 2 daqiiqo company baa ciyaaraya Faransa baa ku hogaaminaya gool u dhaliyo Umtiti caawa Belgium oo hari rabaa oo meel fiican De Bruyne afka hore goolka ciyaartoyga Belgiumka waa kan Tolisso waxa ku laba celiyay Toby Alderweireld Toby waxa ka difaacay Foreign markan waa Griezmann ayaa jeediyay geeska waa Mbappe halkan waa Pogba waqti ay dhameynayaan ciyaartoyga Faransiiska hayaba oo 19 jirku Mbappe ayaa si fiican yeelaya الله محو فرنسيسكو قطر وياي كانوا ويل كان ميلو سocday بابي ويل 19 جيرو سان waxyeelaya orodkiisu waa Henry xoogiisu waa Vier xirfadiisu waa Zidane Mbappe saddex xirfadood oo legendary Faransiis isku haysta ninka kan waa wax kale marqaati baanu ka nahay inaan arkayno lambar 10 aan wax laga qaban karin oo Faransiiska soo maraya min Balatin min Zidane min Mbappe Pogba kore goolka waa ka Tolisso khalaas oo laga qabtay Tolisso كارتوا أيا ديرين عيارته ولا دمايو لكن ولي البرقسي بون بعيارته كهرسين لا دمايو توليسو أيا كل هذا جول لكن كارتوا أيا ديرين مدا فرنسا وحو سعلا فاينل وحو دي من كليه البرقسير إن عيارته ولا يريو عاو بيرشيم هازاد عيدين هازاد أو لقود داري دي برون أو لقود داري روماليو عاو وحبا ضمان وغفصن بيرشيم مركلا أي تاريخ دو كوحمانيسا واكن بوغبا iyo Mbappe waqtiga ay dhameynayaan Witsel iyo Carrasco ayaa raba inay la dagaalaan way soo baasanayaan haye Pogba ayaba Pogba wallahi Belgium waa u dhamaatay waqtigiisuna meesha baa lagu dhameynaya xitaa iyagii baa loo sii dhigi karaya no ma jirto Pogba gacan buu ku celinaya maya wallahi ciyaara walla ka dhigay Pogba qaladka ciyaartu waa dhamaad Faransa waa isdiyaariyay khalaas Faransa final Hugo ayaa dhulka isku tuuray yaya way isku dhagayaan macallimiintu iyo kaayaashiisu wallahi ilaahayo kuwa Faransiisku Mbappe iyo Griezmann iyo kuwa kale taariikh bay caawa sameeyaan Faransa final waa gaaray ugu dambeyn Faransiisku Witsel waa ilmeynaya De Bruyne waa sii soconaya el capitano Hazard kumaanu filan caawin wax badan ciyaartu ka sameeyo فرنسا تاريخ بو هبين كانوا سميي Umtiti ayaa dhaliyay habeenkan dahabiga goosha Faransa ayaa dabaaldegaya macalinku iyo waliba iyo ragii kalaba ee la shaqeynayay Henry ayaa caaw maradu ka dhacday isaga oo wadankiisu Faransiis yahay haddana wuxuu ahaa caawihii wadanka kan ee Belgium malaha hadda waxa uu raadinaya Deschamps macalinka kan ee Belgium si isu salaamaan waa is gacan qaadayaan Martinez iyo Deschamps way isu hambaliyay raali noqosho waka Allah ilaahay Umtiti habeen bay u hayd caawa uu gool dhaliyay waxaan Umtiti uu caaw noqday da'yarkii ugu yaraa ee Faransiiska taariikhda gool ugu dhaliya koobka adduunka ayuu noqday laacibka lagu magacaabo Umtiti oo wuxuu caawa jira oo ka dhaliyay semifinalka gool isagoo jira 24 sano iyo 7 bilood oo lagu daray 26 maalmood muddo 60 sano ma dhicin sida u da'yar ah in uu 60 sano ma dhicin sida u da'yar uu Faransiiska gool u dhaliyay semifinal waxa ugu dambeysay Cotton State iyo isagoo 4 jira 10 bilood iyo 6 maalmood malamba uu gool ka dhaliyay ninkii Fontan ah aw Umtiti habeen bay u tahay alla ninkaana Faransa waliba ayaantan difaacoodu alis ayuu hayay koobka adduunku waa markii ugu horeysay Faransiiska tan iyo 1900 saddex difaac ay gool ugu dhaliyaan koobka adduunku si lamada sanadkan ay gool ugu dhaliyeen Bevard Varin Umtiti hore Faransiiska markaas ay koob adduunka qaadeen 19 waxa uu dhaliyay Lesanasu Balanka iyo Thuram marka Faransiis marba hadii difaacu gool u dhalanayo waxay taariikhdu tiraahdaa koobku way qaadayaan marka waa kan habeen baa soo maray kuwa kan ee Faransiiska oo caawa final bay sida ka ku joogaan waan arki doonaa cid soo baxda habeen dambe wadamada ciyaaraya ee Croatia iyo England Faransiiska ayaa hadda sida final ku gaaraya markii saddexaad ee taariikhda 98 2006 iyo 2018 hal kaliya ayuu noqday waligii Faransa waliba Faransa ayaa hadda gaaray finaalo wax ka badan inta ay gaareen 20 sano u dambeeyay inta jeer ee final gaareen waxay ka badan tahay inta dhow ay ayaantan uu gaaray oo saddex final ah 98 2006 iyo 2018
faras sanadkan shaqo diyaar u yahay ya waska tuura wacmamada haysan isaga tuura Faransiisku caawa geedka wuxuu badan yahay Greece Faransiiska isku imaan karayaan final laga yaabay Croatia inuu wax badan qabto laakiin waxay tahay Faransiisku in habeenka kan cimaamada la isaga tuura ya wallahi baaba wax laga qaban kara ilaah wariyay cunuga madilaynahay cunugaas gaabankaas ilma ma ahan wariga ku ilma ma ahan wiilku ilma ka weeyaan kaas ilma waa ka weeyay Griezmann ka war isagu waa qatartiisa sanadkan Faransa waa qatar badan yahay inkastoo Faransa fiican yahay geedka laga qaaday oo fiirsadii ku lixdiyo kala qatar u ah ya Talyaani ya gaay habeenkaas Talyaani aad lagu masaalan koobku qaadi karo Faranska loo saadaalnay Faranska waa laga qaaday geedka Euro haduu dambe mujid loo saadaalnay waa laga dafay geedka hadda final bay joogan Faranska intuu soo laacibsay habeen qaar baa maradu ka dhactay laakiin sanadkii hore kama midaan inuu gaan yaree gaaban maar loo helin Mbappe war ma jiro Faransa waa finalka baladwar ku soo bixi doona habeen dambe England